no daha no nadafa dalmaryarana waad maqasheen asagana waxa uu nin waliba laakiin aniga hal mid igu taagan waxay tahay hees labalabaa marka aragtiin dislike maxaa idin diiday hees labalabaa marka aragtiin dislike maxaa idin diiday assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh horta waxaan rabaa maanta inaan wax yar idin sheego arrinkan hadda aad u socda aan rabo wax yar update-ka jeceshin moogtaa update-ka ka dambaysiin inaan wax yar idinkaga taataabto horta dhab ahaantii aad waxaan ugu farxay Soomaalidu idin in ay social media fahantay way fahan da hadda nin la leeyahay 69 waa fanaan weyn waa fahanteen da hadda waxa ma dheeraba awal waxa waa video yar haduu soo dhigin taasoo 1400 oo 1400 milyan daawan jirtay da videoga waaya cusub ay soo galiyeen ee ku magacaabeen nabar iyo naxdin ee ugu jeedaan dawladda ugu jeedaan ayaa wuxuu gaaray 300 iyo something k of views waliba 18 hours ay ku jirtay wow waxaad yaa ugu faraxsan horta Soomaalida inay social media fahantay wax uu gal iyo wax uu gudan ay fahmeen sidoo kale awal hore lama like iyo dislike lama aqoon hadirta laakiin waxa la fahmay dislike waxa uu yahay like waxa uu yahay ma sha Allah waxa aad la yaabay heesta ay soo daayeen oo ayaa cusub sida la dhahay waligeed kama dhicin Soomaali ama hees ahaato musafar war boqolaal hees aan dhimata fanaaniin soo qaadaan hees oo laba dadka soo qaadana waad ogtiin moogadiino like asaas u tirada badan leh hadaan mar walba siin lahaydeen wixii ogaan lahayd wuxuu in laga helin moogta laakiin mar walba wax laag la saaraa waa in waxaas laga helay barnaamijka hore oo gudo galo waxa rabaa wax yar in ay idin socodsiiyo oo aan ogahay inaad update-ka ka dambaysiin horta dadka badan waxay isku haystaan dalmaryare sidoo waayaha cusub ugu tirsana dalmaryare waayaha cusub ugu tirsana bismillaahir rahmaanir rahiim asoo cusub asoo aan dhahay asoo aata ah doo anaga naga daranba oo waagaas ugu tirsana waayaha cusub waagaas Nairobi ka dhisnaayeen oo team dhan ay wada ahaayeen de ma sha Allah waxa rabaa bal fariin yar oo soo diray walaalkeen dalmaryare in dil dhageysteen sidoo kalena hees 1 hour ay ku jirto 1 hour hees ku jirto oo dawladdu u soo qaadana way jirtaa nin waliba bal waxaan rabaa bal marka hore in aan idin maqashiyo dalmaryare arrinkan muxuu ka yiri waayaa cusub ee ku dhaqaaqday ee intaasoo kun oo dislike ah ee ku heshay bal ila dhageysta markaan arkay anu arkay hadda xaaladda lagu sugan yahay sida ay u dhaqmayaan aad bay nolol fool xumaatay anagoo badan waliba kaliya shakhsiyan kuma hadlayo anagoo fara badan marka go'aan waxaan qaadanay intii maxaan ku raadayay magac anaga shakhsiyadeed oo faneed uu si ijaafoobi lahaa inaan waaya cusub banaanka dalmaryare waad maqasheen wuxuu dhawaayaa cusub banaanka ka istaagay sidoo kale bal waxaan rabaa inaad ila yara akhrisiin digriyo cabdi oo ah raabar aad u weyn mar walba ay ku tashanayeen de waayaha cusub asagana maxaa uu ku yiri arrinka waa la isku khilaafsan yahay the views-ki oo heestin waa laga foqay dislike-gina way qariyeen waayaha cusub way xireen ma fahanteen laakiin waxay noqotay arrin aad u weyn ee Soomaalidana aniga ahaan aan aad ula yaabo Soomaalidana aad ula yaabo in intaasoo kun oo dislike ah heestaas la saaro waa wax ay soo email baa iga soo dirliyo waxa la daa arrinkan bal saaxiib update fiican naga soo sii waxaana ka hadlay war culumo xitaa way ka hadleen heestan iyo caamo cid aana ka hadlin malahan sidoo kale waxa score ku dhigtay heestan waxa score ku dhigtay cidna heesan in heestan ay gaarto 18 hours ayadoo ku jirto intaasoo kun oo views waa mucjiso laakiin bilawgi waa lagu dhigay bilawgi aad loogu dhignaa heestan hees raali gelin miya ma raali gelin ku socotaa ma shacabka Soomaaliyeed ayaa raali gelinayaa horta ma ogtiin in fanka Soomaaliyeedba uu dawladna dhisi karo dawladna dumi karo taas run ah bal waxa rabaa hees uu dalmaryare uu soo qaaday inaad ila dhageysataan nin waliba suurabo surubi mayse kala saar dadweyno soo ururintaadiyo sabanbaxa mid kula rabaa sahan qaran midkoo yahay
oyoy warsanay sheekada way is heesataa bal ayadan aan aragno heestan dalmaryar uu soo daayay oo hadda ku jirtaba 2 hours ayay ku jirtaa liibaan jaamac ayaana soo geliyay youtuberka heesaha badanaa soo geliyay waa 69,000 aan daawatay 2 hours waxaana comment ka baxday 2.4 comments aan ka baxday waxaana like saartay oo ka heshay heestan 10,000 oo ruux waxaana dislike dhahday 453 wow bal ayana aan eegno aan dib u jalaacno heestii waayaha cusub war aan soo socdo fanki waa isbedeli rabaa fanki aan isbedel rabo fanki wuxuu noqon rabaa siyaasad caadi ah ay No, no, daha, no, nadafa. No, no, daha, no, nadafa. horta muddooyinkanba waayaha cusub baa la weysanaa sanadadan dhan waayaha cusub baa la weysanaa arigaasi hodan inay ku nool yihiin waa maqlay sidoo kale hees Soomaali ah waa hees Soomaali ah Soomaaliba hees sheegata waa heesti ugu badneed ee abid comment laga bixiya waxa comment ka bixisay 32,000 oo weli ma dhicin aniga weli ma arkin qof Soomaali ah oo hees ama la soo daayo general baa laga soo daayay 32,000 oo comment weli ma dhicin sidoo kale waxay score ku jabisay ayadoo saacado kooban ku jirta inay daawato 368,000 oo ruux saas waxaan ku leeyahay ma aha inaan aniga labada dhinac baan taageersanahay laakiin waxa ay dadku ugu yaaceen oo loo daawanayo waxay tahay waa ogtii inay mucaarad iyo muxaafid waa la kala leeyahay mucaarad iyo muxaafid laakiin cid aad taageersanahay cid aad taabacsanahay midna ma jirto laakiin waxaan la yaabanahay sida wax ku socdaana innaba caadi ahayn waxa sidoo kale intii soo fadhiisay aan ku faraxsanahana in Soomaali weyn oo idil ay fahmeen social media waxa weyn uu taraa ma fahantiin waxa weyn uu taraa dawladna waa lagu dhisi karaa dawladna waa lagu dumi karaa ma fahmaysin marka waxay noqotay waayaha cusub in ay daawato 368,000 ayadoo saacado ku jirta macquul maba ahanba 300 waxay daawan jirta amarayna markuu qof uu ku jiro fiidiyoga soo ku jiro 3 days 4 days 5 days markuu ku jiro heesaha qaarkood heesaha uu kacsan xataa kasoo qabo guuleedsiinba kasoo qaba xitaa heeso uu soo qaado 5 days miya ma aqaan 300 uu ku gaari jiro 1 week ama 2 weeks million wixii jiro hadda heestan waxaa noo xadba in ayadoo 22 hours ku jirto waliba lagu dhagan yahay YouTube-da waa la isku dhagaa waliba lagu dhagan yahay qaarkood la jaran doono 368,000 daawan doonto in wiiga soo socdo million ka dhici doonto laakiin millionkaas wuxuu noqon doonaa waxa loo diray alla og ma fahanteen bal commentiyada aan sii dhaxgalno views-ka heestaana kulli wax lagu helay wax kala maahan waa soo raadin ma taqaaniin soo raadin hadda Philips waxyaabo badan gabadhan ay ku qabteen Soomaalidu way iska dhibadeen moogta faar balaayo ay ku qabteen hadda social media oo dhan heestaana haysato ma fahanteen laakiin waxa loo jeedaa 100% dadkan u jeedaan adinkana u jeedin waa cadda waxay tahay wixii loo dislike gareey ayay heestaan ما شاء الله أنا كل واحد كلي أنا كفر حسنا واحد تاعين Soomaaliweyn oo dhan ay fahmeen social media wax uu yahay iyo wax uu gudbiyay wax uu galab ma fahantaa xalay waxaan intaan saxan ka hor waxaan arkay fanaan aad u weyn oo aad loo wada daawo 69 la dhaho video soo day 1 hour markuu ku jiro 435,000 aad daawatay markuu 1 hour ku jiro 435,000 aad daawatay hadeertaana wuxuu marooyaa 4.5 million ayuu marooyaa marka aad ugu faraxsanahay in Soomaalida dhan ay fahmeen social media كله بل وحن أركينا أسجنا ولكن دقريو عبدي قرار أسجنا وبرتيس فيسبوك وصور دقي أيام أركينا واحد أقول ليه أن دقريو عبدي واحد أقول ليه هاي أنا جو واحد دقريو عبدي علمي كان من أسياشي يو بتقول دقياشي كوحدة وياه عصب كوحدة أنا أقول جدة ده أساس كده وعيدلين يدلين تشعب كالصوماليين يدعو هذا taasi meesha ka baxday waxaan bari ka ahay foolxumada ka socota nafteyda iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu tacsiidinayaa magacii waayaha cusub ee aan u soo halganay in loo adeegsado fikrad siyaasadeed ama shakhsi oo haykalkii kooxda loo bahdil dhiiqana lugaha la gashay ugu dambeyn fanka Soomaaliyeed waa hanuuniye abo odaga bariya ka ah u dhahay sidoo kalena waad maqasheen oo maleena walaalkii dalmaryarana waad maqasheen asagana waxa uu jiri arrinkan hawadu galay laakiin aniga hal mid igu taagan waxay tahay hees la balabaa marka aragtiin
dislike maxaa idin diiday eed laba marka aragtida dislike maxaa idin diiday dadkan qaar oo fanka Soomaaliyeed ba dhinac u riday qurac jabay sidiisii fanki mawli ayala marka qofka dadoo fanka Soomaaliyeed ku soo biiray codkiisa laba aduu yahay mas waxba uu sakihin dislike saara hadda kadib idinka maxkamada دسي كيف مو والله بعنا هذا كذي سي كي هوشي سهوته لكن هذا كذي بهستي لبلبا حتى كومنتين ولا سوق عدم دونا ديسلايك لايك ولا سوق عدم دونا هذا كذي برنامج عصبه ما فهمتي قفكي هستي لبلبا اي ديسلايك ده وانا ما سنتي دعنا اللي بعد هذا علينا ما حد كيف تجيا نجد فيه ان شاء الله وحكم مقنعنا هاي ويدينا عيان تانا وحوينا ايدين سو ودادو ابين waxaan diyaarin doona budget aad weyn weyn dhiwa bilaba fiidiyo aad ilaahay